dadka ku nool deegaanka Qalimow oo kamid ah deegaanada hoos yimaada degmada Tani Jowhar ee caasimadda Hirshabelle ayaa waxa ay dhigeen banaanbax ay kaga soo horjeedaan ciidanka dawladda Soomaaliya ka oo ay ku sheegeen in dhibaato ba'an ay ku hayaan ciidanka. waxa ay sheegeen in beerihii ay falan lahaayeen ay u diideen ciidamada dawladda Soomaaliya saraakiisha hogaamisa. Tani waxaan ka cabasho ka nahay ciidanka dawladda federaalka ciidankaas waxa hogaamiyo ninka la yiraahdo General Tredisho oo qaybta 27aad jananka maalinta baxay ilaa aankan ciidankii wuxuu noqday yaacdo noqday wuxuu guda galeen waajibaadka loo egmaday ee u dhaarteen dalka iyo dadka inay difaacayeen bedelkeeda waxay sameeyeen in shacabkii la gumaado gabdhaha la kofsado la dhaco la boobo la bilaqaysto dhibaatadaas ayaa ka caawinayna waxa dhacday in ciidankii loo egmaday inuu qaranka difaaco inuu yiraahdo beer la tacban maayo inuu yiraahdo dhacday cid aan ka yeelayno beer la tacban maayo cid aan ka yeelayno malaha waxa la Soomaaliya waxay tiraahdaa nolol ku diido geeri kuma diido marka waxaan cabashada ay gaarsiinayna dawladda federaalka oo madaxweyne farmaajo hormuudka ka yahay ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre labada gole baarlamaan dawladda mahadin maxay rahan wasiirka gaasha dhiga taliyaha ciidanka Odwaa Yuusuf Raage waxaan cabasho ka nahay ciidankaas hadaad ogtihiin waa ogtadaan ogeen ayaga amarkooda maadaama ay shaqadii loo egmaday ay qaban waayeen macnaha ay ka gaabiyeen bedelkeeda waxay sameysteen bilcakas dadka inay macnaha gumaadaan marka anaga waxa cusayna ciidamadaas in laga qaado ciidamadaas oo macnaha kala joogo garsaala Qalimow iyo ceelka Geelow haddii dawladda ay jirto waxaan rabnaa dadkan dhibaatada nagu haayo geeriya u dambeeyay ninka hadda la soo duugay waxaan rabnaa shalay aan isku dambeysay oo dambeeyay shalay waxaana la soo dhigay 1500 mitir laamiga galbeed 1500 mitirna orax ka soo bax waxaan rabnaa haddii taas dhacdo wax beer oo la fali kara amba ahaan oo loo hanqal taagi kara ma jiro dhibaatana lagu hayo beerta ma fali kartid miina la giliha beerta ma falis hadii kale ahaan miinada ninka gilihayo ogaaw miina ninka gilihayo ma ogaa karaan asaga dawladda ay dhawaay inuu iska difaac asaa laga rabaa haddii difaac karina meesha inuu ka dhaqaaq asaa laga rabaa waxaan wax loo adkaysi kara ma ahan waxaan maqli karna ma ahan gabar la kufsaday nima la dilay dhulka ku jira nima dhaabace Qalimow yaala nima dhaabace isbitaalka oo Madiino jiifa ciidanka yeelay intaasna ciidanka dhibaatada oo noo geystay wax yar ma ahan sidaas aawed waxa nooga daran beer la fali maayo wax yeeli karnana ma ahan wax maqli karna ma ahan noloshayna beertaana ku tiirsan tahay haddii xaq Ilaahay ku qadno cid aan ku eedayna ma lahayn cid aan dacwo u qabna ma lahayn laakiin beer fali meesad 1500 tilaab intana 1500 tilaab beerihi dhaxdoodii ahayd la tacbi maayo wax maqli karna ma yeeli karna dadweynow Maxamed Ibrahim Jimcaale Amoore Home Cable TV Jowhar adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab hadaba macmil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida